magaalada madaxda gobolka Saraare Caynaba ayaa laga furay hotel casri ah kaas oo aan hore looga sameeyay gobolada bari ee Soomaaliland. Furitaanka hotelkan muddooyinkii ugu dambeeyay la isla dhexqaaday ayaa si rasmi ah xadhigga looga jaray, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Saraare ku soo qulqulayay wufuud ka kala imanaya daafaha caalamka si ay uga qayb galaan furitaanka hotelkan casriga ah ee Caynaba. Munaasabadda furitaanka hotelkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud aad u culus oo ay ka mid ahaayeen wasiirada beeraha iyo ciyaaraha iyo waliba badhasa gobolada Sool iyo Togdheer. waxa iyaguna sidoo kale ka soo qayb galay salaadiinta gobolada Soomaaliland. Munaasabadan furitaanka hotelkan Caynaba ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay. Munaasabadan ayaa waxa khudbado kala duwan ka jeediyay dhammaan mas'uuliyiinta iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay hotelkan Caynaba. Hadaladoodina waxa ka mid ahaa sida tan: dawladdu waxay ahmiyadda koowaad siinaysaa dadka hantida gaarka leh. dawladna ma hore u marto haddii ay hantida gaarkii hore u mari wada private sector-ku taasay dawladuhu ku hore u maraan. dawladdu aad iyo aad bay u soo dhaweynaysaa in lagala qayb galo horumarka waddanka. waxay ka turjumaysaa inaanu qofku hadal ka shaqayn oo wax hadala iyo waxaan dadka iyo dalka toona u wanaagsaneen aanu ka shaqayn, laakiin ficil wax qabad iyo horumar iyo wax ummaddu u aydo iyo wax gobolku u aayo iyo ay wax bulshada u aado iyo wax qaranka Soomaaliland qiimo ugu fadhiya inuu qofku ku talaabsado taasaa muhiim ah. marka qofku markuu ku daadiso kordha waxba soo kordha. halkan laba jeer baan inoo jeerba aad baan magaalada runtii ay dhibtay garanaysaa meel wax laga cuno iyo meel la saxdana mid lahayn. waxa la yiraahdaa waxa dad doonaysa casho weyn tagtaa og tanaan magaalada madaxdiya dibadna waxaan sii waan maanta ragga gama waayo muxuu ahaay maalin wax geystaan waxba adoon ka damacsan in maal ka soo galo uu heelay magaalada oo meel la saxdaan iyo meel ay wax ka cunaan bal oo maal geli. marka anigu intii awooddeeda intaasaan ayaan magarasa ku faraadeegay. si kastaba ahaatee hotelkan ayaa noqon doona hotelkii ugu horreeyay noociisan oo kale ah ee laga furo gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. mulkiilaha hotelka Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Karaacin ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in hotelkan isku xidhi doono gobolada galbeedka iyo bariga Soomaaliland. Cabdalla